culimada Soomaaliyeed ayaa ka hortimid xeerka jinsiga ee horyaalla baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Dr. Shaabo Bakar Xasan Maalim oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed kuwada ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa sheegay in Qur'aanka Kariimka ah uu yahay dastuur dhameystiran dalka Soomaaliya lagu maamulo, waxaana uu sheegay inay ka soo horjeestaan wax kasta oo kitaabka Qur'aanka ka hor imaanaya. isagoo guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ku ammaanay qaabkay uga soo horjeesteen xeerkan jinsiga oo baarlamaanka la hor keenay. sadcuka arrintaas rumahantii ilaahay wuxuu leeyahay afa xukma aljaahiliyati yabquun, yacni dadku ma waxa ay doonayaan xukunkii jaahiliyada wixii islaamka ka soo hormaray, islaamka wixii ka soo haray ilaahay wuxuu ku tilmaamay xukum jaahili ah. afa xukma aljaahiliyati yabquun, dadku ma waxay doonayaan xukunkii jaahiliyada laga soo tegay in dib loogu laabto. dadka kitaabkan ilaahay ayaa dastuur u ah dadka muslimiinta ah, isagaa dhaqan u ah dhaqaalahooda, noloshooda, siyaasadooda isagaa la rabaa in lagu dabaqo. marka waxyaalahan hadda baarlamaanka daaqada laga soo gelinayo mar walbaba waxaa lagu baroweynayaa qiiradoodu iyo damiirkoodu inuu nool yahay, diintoodu inay ku nooshahay, iyo in damiirkooda iyo diintoodu ay dhimatay ayaa lagu baroweynaya. sidaas awgeed waxaan shakhsiyan runtii aan aad ugu bogaadinahay dadka mas-uuliyiinta baarlamaanka qaybo ka mida oo ka dhiidhiyey, oo ka xanaaqay, oo ka carooday in islaamka la dhaawaco, anshaxa wanaagsan iyo dhaqanka Soomaaliyeed in la dhaawaco. dadka ka dhiidhiyey oo mas-uuliyiinta ah waan u tahniyadeynaya, waxaan leenahay allah idin barakeeyo, hore u socda, sidaa u difaaca sharafta diinta iyo dalka iyo ummaddiinna, sidaas u difaaca. waxaa kaloo aan runtii baaq u diraynaa baarlamaan kaloo iyaguna iman doona, ha ka digtoonaadaan wax islaamka khilaafsan oo sharafta muslimiinta iyo cirdiga muslimiinta meel uga dhacaya yaysan ku tallaabsanin. taariikhdu waa maguuraan, waa qurmi doontaa taariikhdu, buug madow ilaahay agtiisana ha uga qorminina, muslimiinta dhexdoodana ha uga qorminina. warweligiin ma aragteen dad baarlamaan gaalo ah qof inta ka dhex istaagay yiri kitaabkan muslimka ah, kitaabkan yacni qur'aanka ah ee muslimiintu ay ku dhaqmaan nooga dhiga dastuur? ma la dhihi karaa aqalka cadi Maraykanka inta laga istaago qofkaasi ishiisa dambe qorax ma arkayso? war sidee adinku damiirkiina u dhintay oo diintiina ay u dhimatay oo akhlaaqdiina ay u dhimatay marka aad inta gaal wax ka soo koobiyeysaan baarlamaan inta ka dhex istaagtaan wadan muslimiina ku dhex yaala oo dad muslimiinuhu ay iska leeyihiin inaad tiraahaan kana noo sharci ah? waa damiir xumo. arrimaha noocaas oo kalena ha laga digtoonaado, waana cambaaraynaynaa, waana u bogaadinaynaa. dhinaca kale magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaa maanta lagu qabtay kulan looga soo horjeedo xeerka jinsiga. kulankan oo ay soo abaabuleen culimada Soomaaliyeed ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada. kulankaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha guud ee golaha sare ee culimada Soomaaliyeed Sheekh Aadan Sugow Suufiyare, waxaana uu faahfaahin ka bixiyey kulankaasi isagoo ku micneeyey ujeedka kulanka inuu ahaa difaaca diinteena suuban ee islaamka oo dhammaantoodna ku salaysnaa difaaca diinteenna islaamka iyo masaalixda ummadda in la ilaaliyo. waa labada qodob ay ku saabsanayeen. haddii ay noqon lahayd kufsiga laga hadlay noocuu raba ha noqdo dhibaatooyinka ah, iyo haddii ay noqon lahayd xeerka foolxumada badan ee diinla dirirka ah ee diinla'aanta ah ee culummadu ay ku tilmaameen baabi'inta jinsiga, ay ku tilmaameen in dalkeenna iyo dadkeenna laga difaaco. madaxdii baarlamaanka Soomaaliyeed ee arrintaa horseedayna aan ku taageerno shirka ujeedadiisu intaasay ahayd. Sheekh Cabdiqaadir Soomow, afhayeenka guud ee golaha culimada Soomaaliyeed oo isna kulankaasi ka hadlay, ayaa mahadcelin ballaaran u jeediyey guddoonka baarlamaanka, waxaana uu sheegay in guddoonku uu difaacay sharaftii ummadda Soomaaliyeed, taasina ay uga mahadcelinayaan. cagsi kaleetood maanta oo guddoonka baarlamaanku sameeyey in xeerkii jinsiga ee ka hor imaanaya shareecadeena islaamka ee qaymada ah ee ilaahay uu u soo dejiyey bani'aadanka dhammaantiisba inuu ku noolaado si sharaf ah ku noolaado, oo kitaabkii quraanka kariimka ee munazalka ilaahay nagu karameeyey oo sharafteena uu ku suganta sida aayadda quraanku noo sheegay si Allah dhambaraayo toos uga hor imaanayay in ay diidaan
aad baan guddoonka baarlamaanka ugu ammaanaynaa ugana mahadcelinaynaa uguna bogaadinaynaa waxaanu leenahay waxaad qaadateen kaalin geesinimo leh waxaad difaacdeen sharaf iyo diin jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo jiritaanka akhlaaqda ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen dhammaan iyo inta inku mabda ah baarlamaanka ah dhammaantiin waxaad leenahay jazaakumullahu anna wa an islaami khayran buuq badan ayaa ka dhashay xeerka jinsiga oo horyaala baarlamaanka federaalka Soomaaliya xeerkaas oo lagu sheegay in si cad uga hor imaanaya diinteena suuban ee islaamka xasan maxamed samatar cawke warbaahinta caalamiga hoyga diinta muqdisho.